አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ሲጀመር 17.2% የነበረው የደን ሽፋን ወደ 2016 ላይ ወደ 23.6% ከፍ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። የደን ሽፋናችን ከፍ ባለ ቁጥር markii barnaamijka dhaxal reebka cagaaran la bilaabay daboolka kaymaha dalka waxa uu ahaa 17.2 boqolkiiba hase yeeshee sanadkii 2016 tiris taariikheedka Itoobiya waxa uu gaadhay 23.6 boqolkiiba daboolka kaymaha horumarinta biyo qabadyada isku dhafan iyo dhaxalka cagaaran waa laba arrimood oo isdhamaystira markii la hirgelinayay horumarinta biyo qabadyada ilaalinta ciidda iyo biyaha iyo beerista geedaha nabaad guurka ciidda si weyn ayuu u yaraaday tusaale ahaan nabaad guurka sanadlaha ah ee dhulka bannaan oo gaadhi jiray 300 oo tan halka hektar waxa hoos u dhacay 90% tan halka kan dhulka beeraha oo ahaa 30% tan uu noqday 54 tani waxay horseeday kororka wax soo saarka beeraha iyo xoolaha iyadoo sidoo kale wanaajisay tayada iyo caafimaadka ciidda marka aan ka hadlayno wax soo saarka waxaan ula jeednaa kororka wax soo saarka xoolaha midhaha iyo dalagyada kororka wax soo saarkuna waxa uu sare u qaaday heerka nolosha bulshada